xasan sheekh maxamuud madaxweynaha muddaxileedkiisu gabaabsiga yahay ayaa loo diiday gobolka Gedo iyadoo gudoomiyaha gobolka Gedo uu ku dhawaaqay inaysan ka dhacayn doorasho qof iyo cod ah oo aan ka dhacayn Jubbaland kale Gedana ay ka tirsan tahay Jubbaland madaxweynaha muddaxileedkiisu gabaabsiga yahay xasan sheekh maxamuud oo muddaxileedkiisa rasmiga ahaa ay ka dhiman tahay hal maalin ayaa ceeb kala kulmay gobolka Gedo iyadoo uu xasan sheekh maxamuud ka qayb galayo shir u dhaxeeya mucaaradka iyo isaga oo ay dhexdhexaadinayaan beesha caalamka shalay xasan sheekh maxamuud waxa uu shirkaasi ka sheegay in doorashada qof iyo codka ay ka dhacayso deegaanada Jubbaland isla markaasina gobolka Gedo ay ka dhacayso taasi waxa uu kala kulmay ceeb iyo fadeexad weyn iyadoo uu gudoomiyihii gobolka Gedo uu sheegay Gedo in ay ka tirsan tahay Jubbaland doorasho dhoodhoob ah oo xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisu ay wadatana aysan ka dhacayn taasi oo aan ka dhacayn deegaanada kale ee Jubbaland waxay taasi ceeb iyo fadeexad ku noqotay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha muddaxileedkiisu gabaabsiga yahay doorashadan iyo inay ka dhacayso gobolka Gedo waxa lacag uga qaatay wasiirka amniga Cabdullaahi Fartaag iyo sidoo kale taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee gobolka Gedo ay dawladdu u magacowday Cabdirashiid Janab xubnahan ayaa xasan sheekh maxamuud u sheegay in ay gacanta u soo gelinayaan gobolka Gedo isla markaasina ay ka dhacayso doorashada qof iyo codka balse taas waxa diiday gudoomiyihii gobolka Gedo Cabdullaahi Shimbir isla markaasina kol hore la shaqeeyay dhanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa isagoo hadlay waxa uu sheegay in Gedo ay ka tirsan tahay Jubbaland isla markaasina aysan doorasho qof iyo cod ah oo aan ka dhacayn deegaanada kale ee Jubbaland aysan Gedo ka dhacayn xasan sheekh maxamuud mucaaradka iyo asagaba si isku mid ah ay beesha caalamku ula dhaqantay iyadoo shalay halka shirku uu ka dhacay markii ay galayeen si isku mid ah taleefanada looga qaaday taasi oo ku tusinaysa in awoodda xasan sheekh maxamuud madaxweynaha muddaxileedkiisu gabaabsiga yahay hoos loo dhigay dhanka kale mucaaradka ayaa tan ay u tahay guul mucaaradka ayaa dhankooda maanta shirka waxa la filayaa in ay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha muddaxileedkiisu gabaabsiga yahay iyo sidoo kale beesha caalamkaba ay hor dhigaan in aysan jirin doorasho la isku raacsan yahay isla markaasina gobolkii Gedo ee xasan sheekh maxamuud uu sheegay in ay ka dhacayso doorashadu ay diidan yihiin shacabkii gobolkaasi iyo sidoo kale maamulkoodii isla markaasina ay sheegeen in aysan wax doorasho ah ka dhacayn taasi oo fashil ku ah xasan sheekh maxamuud madaxweynaha muddaxileedkiisu gabaabsiga yahay dhanka kale mucaaradku waxa ay hor dhigayaan xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale beesha caalamka oo dhexdhexaadinaysa mucaaradka iyo xasan sheekh maxamuud in muddaxileedkii rasmiga ahaa ee madaxweynaha muddaxileedkiisu gabaabsiga yahay xasan sheekh maxamuud uu dhamaaday isla markaasina uu ku dhawaaqo in muddaxileedkiisii rasmiga ahaa uu dhamaaday nooca doorasho ee la qabanayo ee dalka la gelinayana laga wada heshiiyo oo isaga oo is ogol ah dalka doorasho loogu dareero hadaba xasan sheekh maxamuud madaxweynaha muddaxileedkiisu gabaabsiga yahay halka maalin ay muddaxileedkiisu uga dhiman tahay maxaa la gudboon